بسم الله الرحمن الرحيم. كسودو جانر كينا دكتور محمد زاك ان فضلا هدا ku cusubtahay subscribe saar channelka soo soo garaacsho walba cusub aan halkan soo dhigno maanta waxaan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo ama aan bilaawi doono maadada cell biology-ga oo aan casharaan badan halkan kaga soo diyaarin doono cell biology muxuu yahay introduction-kiisa cell discovery iyo soo kala cell theory iyo dhamaantiisa ay qaadan doona hadii la yiraahdo oo maanta aan qaar ka qaadan doono casharaan badan oo mataqaana cell biology-ga ku saabsan waan soo dhigi doonaa hadii la yiraahdo halkan ay soo gali doonaa cell biology horta waa cell biology muxuu yahay cell biology is a branch of biology studying the structure and function of cell, also known as the basic unit of life. Cell biology waa branch ka mid ah biology-ga kaasoo lagu baranayo marka qaab dhismeedka iyo sidoo kale shaqada cell-ka. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa aasaaska unuga ama aasaaska nolosha ayaa loo yaqaanaa. Cell biology waa branch ka mid ah biology-ga oo lagu barto cell-ka. Cell muxuu yahay? Cell in biology, cell-ka biology ahaan marka loo qeexo waa the basic membrane bounded unit. waa aasaaska unug kaasoo leh laba lakable membrane bounded waxaa loola jeedaa waa unug leh laba lakab waxaa loola jeedaa laba xubub ayuu leeyahay kaasoo that contains the fundamental molecules kaasoo ay ka kooban yihiin ama uu ka kooban yahay fundamental molecules muhiim ah molecules aad muhiim u ah of life oo nolosha muhiim u ah marka waa molecules muhiim nolosha u ah ayuu ka kooban yahay and of which all living things are composed. iyo sidoo kale waa waxa ay ka kooban yihiin dhammaan noolayaasha oo dhan ay ka kooban yihiin. waa cell is the basic functional unit of living organism. Cell is the basic and functional unit of living organism. Cell-ku waa aasaaska structure ahaan iyo sidoo kale shaqo ahaan ee waxyaabaha nool. Cell-ka saan wada ognahay discovery ayuu soo maray. Cell-ka waxaa soo ogaaday saynisyahano badan ayaa soo ogaaday oo ay isku dhiibeen laakiin waa ay kala horeeyeen. waxaan ugu horeeyay saynisyahanka loo yaqaano Robert Hooke, an English scientist. wuxuu ahaa English scientist ayuu ahaa waxaan loo magacaabi jiray Robert Hooke. wuxuu dhashay sanadkii 1635 ilaa wuxuuna dhintay 1703. waana saynisyahankii ugu horeeyay ee soo ikhtiraacay cell-ka ama soo ogaado cell-ka. sababta ognahay waa saynisyahan badan ayaa soo ogaaday waa ninkii ugu horeeyay. was the first to describe cell based on his microscope observation of Koch. wuxuu ahaa saynisyahankii qeexay ama ogaaday asoo ku ogaaday waa marka his microscope observation asoo baaritaan uu ku sameeyay microscope-kiisa asoo isticmaalay ayuu ogaaday. saynisyahankan waxaa loo magacaabi jiray Robert Hooke waa ninkii koowaad. saynisyahanka labaad wuxuu ahaa Matthias Schistelian waana 1804 ayuu dhashay ilaa 1881 ayuu dhintay. wuxuu ogaaday 1838 ayuu ogaaday waana Germany botanist ama saynisyahan German ah oo ku takhasusay cilmiga dhirta. who made extensive microscope observation of a plant tissue kaasoo sameeyay waa marka extensive microscope observation waa ogaansho ama observation ama indhayn zaid u weyn ama balaaran oo microscope ku sameeyay plant tissue unugyada mataqaana plantska ama dhirta ayuu ku sameeyay. described them as being composed of cell asoo ku qeexay in plant tissue ama plantska ay leeyihiin ama ay ka kooban yihiin cell. saynisyahankan wuxuu ogaaday in plantska xitaa ay ka kooban yihiin cell ama uu ka samaysan yahay cell ayuu ogaaday. wuxuu ogaaday sanadkii 1838 wuxuuna dhashay 1804 wuxuuna dhintay 1881. waa saynisyahan labaad. saynisyahanka saddexaad waxaa loo yaqaanaa Theodore. wuxuuna dhashay 1810 wuxuuna dhintay 1882. German physiologist ayuu ahaa waa nin saynisyahan German ah oo ku takhasusay cilmiga physiology-ga ayuu ahaa.
made similar microscopic observation sidoo kale wuxuu sameeyay si la mid ah microscopic observation ama baaritaan microscope ayuu sameeyay of animal tissue wuxuu ku sameeyay kii hore wuxuu ahaa plant tissue ayuu ahaa ninkan wuxuu observation ku sameeyay animal tissue wuxuu ogaaday in animal tissue ama animals ay ka kooban yihiin sidoo kale composite of cell inay cell uu ka kooban yahay waxaan gudagali doonaa cell theory waxa loo yaqaan ama aragtida cellka cell theory state that cell theory wuxuu sheegayaa all organisms are made of one or more cells in dhammaan organismka ama noolayaasha ay ka kooban yihiin hal cell ama wax ka badan inay ka kooban yihiin waxa la ogaa in organismka ama noolayaasha oo dhan ay ka kooban yihiin hal cell ama wax ka badan sidoo kale all the life function of organism occurs within cell in dhammaan noolayaasha shaqada ay qabtaan in organism noolaha shaqada laga dhex qabto ay qabtaan within cell inuu qabto waa number 3 all cell come from already existing cell in dhammaan unugyada ay ka imaadeen ama in dhammaan cellasha ay ka imaadeen cell kale oo hore u jiri jiray inay ka soo farcmeen okay structure shared by all cells structures waxa qaab dhismeedka ay isla wadaagaan dhammaan cellyaasha ayaa waxa ah plasma membrane cell walba wuxuu leeyahay plasma membrane cytoplasm ribosomes iyo DNA ayuu leeyahay cell walba wuxuu leeyahay plasma membrane cytoplasm ribosomes iyo circle DNA mid walba waa arki doonaa dilay plasma membrane ay ku bilaaw doonaa kan koowaad ah waa structure shared by all cell dhammaan cellyaasha waxay wadaagaan of these particulars waxaa ay wadaan waxa kamid ah plasma membrane cytoplasm ribosomes iyo circle DNA waxaan ka bilaaw doonaa plasma membrane-ka plasma membrane magaca kale loo yaqaan waa cell membrane plasma membrane iyo circle cell membrane waa isku mid hada plasma membrane aragtid oo dhow cell membrane na ku wareerin waa is a membrane found in all cell that separates the interior of the cell from the outside environment while the membrane waa xub found in all cell kaasoo laga helo dhammaan cellasha oo dhan ayaa laga helaa cell membrane-ka that separate the interior of cell kaasoo kala qaybiya interior of the cellka gudihiisa from the outside environment cellka wuxuu qabanaa marka outside iyo soo kala inner the plasma membrane consists of a lipid bilayer plasma membrane-ka wuxuu ka kooban yahay marka consist of wuxuu ka kooban yahay lipid bilayer waa dufan laba lakabla ah ayuu ka kooban lipid bilayer waa dufan laba lakabla ayuu ka kooban yahay marka plasma membrane-ka the plasma membrane consist of plasma membrane-ka wuxuu ka kooban yahay dul maxaa leedahay waa lipid bilayer that is lipid bilayer habu ka koobanaadee waa semi permeable waxaa loola jeedaa in cellka wixii u baahnaa uu gudaha u galaan qaarna ay banaanka lagu celiyo waa semi permeable waa selective okay the plasma membrane regulates the transport plasma membrane shaqadiisa waxay tahay marka regulates inuu control uu ku qabto ama uu regulate gareeyo the transport of material entering and existing the cell wuxuu regulate gareynayaa ama sidoo kale maintains uu ku sameynayaa cellasha wax gudaha u galaayo iyo sidoo kale wax ka baxayo ayuu control ku sameynaa marka cell membrane-ka ama plasma membrane-ka waa cytoplasm midka labaad cytoplasm-ku muxuu yahay marka waa thick solution waa milan badan that fills each cell kaasoo buuxiya cell walba cytoplasm wuxuu ku cadeynaa marka inay waxyaabo milan ay yihiin kuwaasoo buuxiya cell walba and enclosed by cell sidoo kale waxay enclosed ama wareeg ku sameeyaan ama mataqaanaa ay daboolaan cellka ay daboolaan cell membrane-ka ay daboolaan okay it mainly composed of cell membrane-ka cytoplasm-ka waxay ka kooban yihiin water oo biyo ah cells oo cusbadii ahayd and protein
cytoplasm muxuu ka kooban yahay dulka maxallada waa water, salt and protein. oo isku tagay ay ka kooban yihiin waa solution, waa thick solution that fills each cell and enclosed by the cell membrane. Okay, halkan waxay ku caddeyn marka cytoplasmka inay solution yihiin oo isku tagay water, salt and protein iyo protein isku tagay. waxayna buuxiyaan diamonds ay daboolaan enclosed ay ku sameeyaan the cell membrane. Okay, all of the organelles such as nucleus, endoplasmic reticulum and mitochondria are located in the cytoplasm. Dhammaan organellada sida nucleuskii, endoplasmic reticulumkii iyo sidoo kale mitochondria are located in the cytoplasm. Cytoplasmka waxa ku yaalo nucleuskii oo buudi ah, endoplasmic reticulum anaga arki doona dilaa 10 ka soo nagu soo fodle waxa loo qaban doonaa in rab endoplasmic reticulum iyo soo kale smooth endoplasmic reticulum ayaa loo qaban doonaa dilaa endoplasmic reticulumka waa laba qaba ayuu leeyahay waa mid raaf iyo soo kale mid smooth ah. taasi waxay ku cadeynaysaa in endoplasmic cytoplasmka uu muhiim yahay. sidoo kale ribosome muxuu yihiin waa sawirka hoose u jeedaan waa qaybtan waa cytoplasmka soo jeedeen nucleus membrane-ka abudi cell membrane-ki waa qaybtii kore oo mataqaana cellka ku gidaarneed iyo soo kale nucleuski ribosome. What is a complex molecules found inside the living cell that produce proteins for amino acid during the process called protein synthesis. Ribosomes were complex molecules. Molecules isku dhafan found inside the living cells. kuwaas oo laga hela marka unugyada nool ayaa laga hela marka living cells ayaa laga hela that produce protein for amino acid. kuwaas soo saara protein ay soo saaraan. Ribosomes sidoo kale waa shaqadooda ugu weyn waxa marka protein synthesis waa inay protein ay soo saaraan. During inta lagu guda jiro waa marka the process xanaanka koole loo magacaabo protein synthesis. Okay, ribosome waxay ku cadeynaa marka inuu protein synthesis inuu macnaha waa protein ayuu sameeyaa marka protein synthesis waa sameeyski marka halkan waxa uu jeedna marka cellki cellka plasma membrane, Golgi abundance, mitochondria. marka insha Allah dilaa 10 kan soo xigeen ku qaadan doonaa dilaa raado aan kaga hadli doonaa.